baran marka aad magacaani maqasho waxaa kugu soo dhacaya dhul buuriley ah haddana qabow xigeen ah baran waxay 80 kilomitir u jirtaa xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso 540 kilomitirna waxay u jirtaa caasimadda Puntland ee Garowe iyadoo sidoo kale 120 kilomitir u jirta xarunta gobolka Sanaag ee Ceyrgaabo baran ayaa waxa ay martigelisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraca Puntland haddaba barnaamijkan gaarka ah inta uu socdo waxaynu ku lafaguri doonaa sida ay u suura gashay in halkan laga yegleelo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sida ay u caawisay degmada iyo guud ahaan Puntland iyo 20 September ee sanadkii 2020 ayaa si rasmi ah magaalada Baran loogu furay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyadoo maalinkaas ilaa maanta ay wax ku bartaan ardayda magaalada kuwa ka yimid degmooyinka kale ee Puntland iyo Somaliland iyadoo jaamacadda laga dhigo 5 kuliyadood oo kala ah kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka kuliyadda daraasaadka islaamka iyo luqadda carabiga kuliyadda cilmiga kuliyadda waxbarashada iyo kuliyadda culuumta caafimaadka haddaba kahor jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sidee ardayda reer Baran iyo kuwa ku tirsan jaamacaddu ay ku heli jireen waxbarasho jaamacadeed su'aashaasi ayaa waxaan hordhigay madaxa maamulka iyo maaliyadda ee JUS faraca Puntland Maxamed Cabdulqaadir Yuusuf Qadaafi jaamacadda tan waxa la asaasay adigu 2009kii buu soo bilowday shaqadeedu jaamacadda tan waxa asaasay community deegaankan u dhashay oo ah niman odayaal ah oo barsoora ah iyo dad jooga qurbaha ayaa barnaamijkan iyo dadka deegaanka jooga wad ka kaashadeen laakiin fikirku wuxuu ka soo maaxday odayaal runtii ruucada ah oo waxbarashada muddo ka shaqeynayay oo ka mid ahaa Ilaahay uu naxariistay Abshir Aw Yuusuf Ciise wasiirka waxbarashada Puntland oo dhawaan geeriyooday iyo rag badan oo kale oo ka mid yahay maxaan ku dhahaa qoraaga maxaan ku dhahaa Saciid Saalax oo aad loo yaqaano iyo rag kale badan oo wasiirka waxbarashada Puntland hadda uu ka mid yahay Cabdullaahi Maxamed Xasan marka barnaamijkaas markii runtii la isku raacay in jaamacad la dhiso deegaankan baa runtii loo gartay in laga dhiso markii deegaanka loo dhisana magaca Maakhir ayaa la dhisay qadina professor Ali Cabdiraxmaan Xirsi la yiraahdo ayaa loo dhigay barnaamijkii halkan baa laga dhisay kadib markii deegaanka la yimi oo halkan laga bilaabay waxa runtii deegaankii iyo odayaashii hawshan waday oo mas'uuliyiinta ahaa ee isla qaateen in loo dhismihii la galo ardada wax ka barata jaamacadda ayaa inta badan waxa ay ka kala yimaadaan gobolada Puntland iyo Somaliland balse waxa jirta arday ka timid magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida Nicma Axmed Cabdullaahi waa ardayad dhigata cilmiga dhulka ama geologiga waxa ay ka timid magaalada Jigjiga Nicma waxa ay sharaxday sida ay ugu suura gashay inay waxbarasho ka hesha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed horta run ahaantii aniga waxay ilaahay chance aad u fiican sababtoo ah waxay noqotay in xarunta igu dhow marka la eego caabud waqiyo qaybaha kale ee Muqdisho ku yaala aadna waan ugu faraxsanahay sababtoo ma gaari karin waxaynan aad ugu farxay inay noqoto mid ii dhow masaafo ahaan marka la eego anigoo ka soo kicitamay magaalada Jigjiga waxaan bartaa kulliyad aan aad ugu hamin jiray aan aadna jeclaa ilaahayna igu saaciday ilaahay ka sokow maamulka jaamacaduna iga saacideen oo ah kulliyadda geology aadna waan ugu faraxsanay wallahi dareenkayga lama soo koobi karo adigu waad dareemi kartaa wax cirka kale ku jiray markuu dhulka ku soo noqdo marka aad ugu faraxsanay jaamacadana waan soo dhaweynaya mar kasta wallahi horta tan koobaad waxaan dhihi karnaa waxa weeyaan shahaadada qiimaha ay leedahay shahaadadeedu tan labaad waa jaamacadda koobaad ee dalkeena inaguna Soomaali baan nahay anu maanta Jigjigaan joogay jaamacadda Jigjiga haddaan ka soo baxo waxba faa'iido ma leh laakiin tii dalkayga laga yaqaan oo kaalinta koowaad ugu jirtay inaan ka baxo aadan ugu faraxsanahay sidoo kale shahaadada qiimaha ay leedahay male meelaha aan ka imid oo dhan dhamaantood marka aan ahaantayda la eego dhismaha casriga ah ee ay jaamacaddu hadda ku shaqeyso ayaa waxaa dhisay hay'adda Kuwait Fund ka hor dhismahani maamulka iyo shacabka ku dhaqan magaalada Baran ayaa waxa ay dhisteen dhismo wax lagu bara ardayda kuwaasi oo u muuqday dhiig joojin sida ay u suura gashay dhismahan iyo cidda gacanta ka geysatay ayaa waxa sharaxay madaxa maamulka iyo maaliyadda JUS faraca Puntland ee Baran mudane Maxamed Cabdulqaadir Yuusuf runtii dhismaha aragtay oo halka ka muuqda
oo iska wuxuu qabso lagu dhisay ayaa runtii la bilaabay oo uu dhagax dhigay suldaanka guud Suldaan Cabdisalaan iyo odayaashii hawsha waday oo uu kamid yahay barsooradii iyo runtii dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta dawladda Puntland markaa joogay runtii dhismahaas muddo la waday kadibna waxa loo gudbay runtii jaamacadda in la ololeeyo si ay jaamacadda hanqaad u yeelato kadibna waxa loo gudbay in la helo dhismo noocan oo kale ah hadda casriga ah inuu ku jirno dhismahaas runtii waxa qaybtiisa lahaa dad iyadana deegaanka u dhashay waxaana dhisay oo macna ama fanka laga helay Kuwait fan runtii iyada laftigeeda saas oo kale waxa ka shaqeeya dad reer Puntland oo mas'uuliyiin ah oo uu kamid yahay maxaan ku dhahay waqtiga madaxweynihii Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo mas'uuliyiinta markaa joogtay wasiir lahayd barnaamijkaas runtii barnaamij najaxay buu noqday mashruucna waa la helay runtii halkan laga hirgeliyay dhismahan aragtay quruxda badan dhismahan markii la hirgeliyay jaamacaddii dhismihii markuu dhamaaday ayay kusoo wareegtay kadibna community jaamacaddii ay asaaseen ahayd maakhir runtii haddana waxaa la arkay inay ka fiican tahay in la helo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo runtii halka farac laga dhigo processkaas haddana bilowday processka laftiisa insha Allah taala odayaasha asaasayaasha wax ka bilaabay oo ka mid yahay markaa wasiirkii waxbarashada Puntland Ilaahu naxariistay Abshir Yuusuf Ciise iyo mas'uuliyiin kale oo la kaashanayay oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta heer federaal oo ay ka mid tahay Senator Saciido iyo xildhibaanadii kale runtii mas'uuliyiintaas waxay barnaamijka gaarsiiyeen mas'uuliyiintii markaas dowladda federaalka madaxweynayaashii iyo wasiiradii maxaan ku dhahay qaybta waxbarashada qaabilsan wasaaradda waxbarashada barnaamijkaas runtii muddo soconayay dowladdii Cabdiweli baan ahayd waqtigii maxaan ku dhahay shaqadaas bilowatay markii dambena barnaamijkaas waxa la najaxay ama lagu guuleystay insha Allah taala dhawaan waqtigii dowladdii sida Cabdilaahi hadda dowladda jirta dowladdaasna insha Allah taala 16 September ayay lagu guuleystay inay yimaadaan team xamara oo hogaaminaya rectorkii jaamacadda hore Prof Jamcaale oo runtii 16 September ayaa la daahfuray halka laga daahfuray isagoo ay la socdaan mas'uuliyiin xildhibaano iyo senataro maqsadkaas ay ku hirgashay jaamacadda habraacyada iyo shuruudaha looga baahan yahay ardayga soo codsanaya jaamacadda ayaa waxaa ka mid ah inuu ardaygu ka gudbay imtixaanka dugsiga sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inuu wato warqadda dhalashada ee dowladda hoose iyo shuruudo kale ma fududo in aad si fudud ku hesho warqadda dhalashada iyadoo laga yaabo in ay qaadato maalmo ama toddobaad caqabadahaasi oo guud ahaanba dalka ka jira ayaa ardayda ka yimaada magaalooyinka kale ee Puntland ama Somaliland waxa uu dheer in aysan ba aqoon meesha ay xarunta dowladda hoose kaga taal magaalada Baran balse maamulka dowladda hoose ee Baran oo arintani fududeynaya ayaa waxay ardaydu ku caawiyeen sida ay warqadaha dhalashada uga heli lahaayeen ardayda iyaga oo jooga jaamacadda Faaduma Cabdiqaadir Yuusuf waxa ay ka howlgashaa dowladda hoose ee Baran waxa ay sharaxaysaa culayska iyo caqabadaha ay fududeysay dowladda hoose si loo helo warqadaha dhalashada iyo sugnaanta kadib marka aragnay baahiyaha ardayda waxa jira arday badan oo ka imanaysa gobolada dalka kuwaas oo aan dowladda hoose meel kaga taal ana garanayn magaalada Baran marka taas caqabad bay keenaysaa ardayga inuu waqti badan ka lumo marka aragnay inay bilaabatay diiwaangelinta jaamacaddu halka waxaan ardaydu way imanayaan ama degmada Baran ka yimaadeen ama tuulooyinka hoos yimaada ka yimaadeen deegaanada kale jaamacadda ay toos imanayaan halkaas ay keenayaan warqadoodii dhalashada diiwaangelintii sawiradoodii foomkoodii oo dhammaystiran halka ay ka qaadanayaan Maxamuud Abshir waa arday cusub oo doonaya inuu iska diiwaangeliyo jaamacadda ummadda si uu u helo jaamacadda waxa uu kaga yimid Baargaal oo in ka badan 500 kiiloomitir u jirta magaalada Baran isaga oo ka jawaabaya sababta uu masaafadaasi fog ugu yimid magaalada ayaa waxa uu yiri jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa ku taal runtii waa jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed weeye faraceedii Puntland magaalada Baran waxaan moodaa inaan nasiib u helay ardaydeeda sanadka secondariyada ka baxday jaamacaddii oo noogu timi gobolkaygii deegaankaygii sida daraadeed baan waxaan ku doortay maadaama jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay deegaankaygii timi inaan galo markaan aan u aadi lahaa markii hore Muqdisho u aadi lahaa xafiiska arrimaha ardada ee jaamacadda waxa uu si gaar ah ugu shaqeeyaa ardada sidoo kale waa isku xiraha ardada iyo maamulka jaamacadda balse xafiiskani waxa taasi u dheer guriga u raadinta ardada aan deganeen Baran ee ka yimaada degmooyinka fogfog ee Puntland
madaxa xafiiska arrimaha ardada Cumar Sheekh Mubaarak ayaa weydiiyay shaqada ugu muhiimsan ee uu xafiiskani qabto. runtii xafiiska arrimaha ardayda ujeedooyin badan baa laga leeyahay jaamacadda bolis weyn bay ka leedahay waa xafiiska mataqaanaa ardayda ay ka curyaami karaan haddii uu shaqeeyaan ardaydu mataqaanaa horumar weyn ay la gaarsiin karo wuxuu u taagan yahay ugu horeyn xafiiska isku xidhi doona ardayda iyo maamulka markaan saa leenahay waxa weeye fariimaha ka imaan doona maamulka in toos uu la wadaago ardaydii ardada xogaha ka imaan doona ama codsiyada ama waxay u baahan yihiin ama cabashada oo kala waxa xafiiska ay la wadaagi lahaayeen hubin lahaa kadibna soo gudbin lahaa ugu horeyn ardada in la soo dhaweeyo baahiyahooda mataqaana xafiisku ka warhayo deegaanka kala runtii gobolkan arday badan baa imaan doonta oo ka mid ah gobolada Soomaaliyeed Puntland ama Soomaaliyaba runtii ardaydaasi hooy bay u baahnaan doonaan deegaan bay u baahnaan doonaan xafiiskii ogaan lahaa ka wardoon lahaa baahiyahooda la raadin lahaa si guud ardayda wax ka barata jaamacadda gudaheeda in laga shaqeeyo midnimadooda horumarkooda xafiiska wuxuu taagan yahay ardayda in aqoon koros loo sameeyo wacyigelin badan loo sameeyo maskaxdooda la dhiso jirkooda la dhiso markaan saleenay waxa kamid ah jirkooda la dhiso in loo sameeyo sportskii ciyaarihii fududaa kubadda cagta kala si ay soo bartaan maadaama ka yimaadeen gobolo kala duwan in la dhiso guddigii ama naadiga ardayda oo horseed u noqon doona ama tiri doona golaha guud ee ardayda oo doorasho loo sameeyo oo hal cod iyo hal qof ah kadibna ujeedooyinkii guddigii loo yeegleelana xafiisku ka ogaan lahaa ku dibgeli lahaa waxa kale oo xafiiskan u taagan yahay in wax loo yaqaan cultural week oo kala in la sameeyo ama bulshadii gobolka ama si gaar ah jaamacadda gudaheedii munaasabadaha jira mataqaanaa la xuso oo taariikhi ah oo ay Soomaalidu leedahay 15 May 26 June kuwaas oo kala la mid ah in ardadaasi xafiiska ay kaashanayaan maamulkoodaba in la hirgeliyo Faarax Maxamed Cumar waa aabba degan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo 180 kiiloomitir u jirta magaalada Baran waxa uu sheegay in uu halkaasi kaga yimid si uu ubadkiisa ugu qoro jaamacadda isagoo oo sheegay in wiilkiisu uu rajaynayo inay u soo baxdo kulliyadda cilmiga gaar ahaan qaybta geology-ga oo uu sheegay in jaamacaddu laga yeegleelay meel ku habboon geology-ga sanadkii koowaad ayaa waxa ay bilaabay inankii u horeeyay oo iskuulka secondary ka soo baxay magaalada Boosaaso iskuulka Shaafici aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa jaamacadda Bariga Afrika ee lagu soo dhaweeyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo Ilaahay nagu soo dhaweeyay mahadda koowaad waxa iska leh Ilaahayay mahadda labaadna waxa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Puntland oo noo keenay farac kamid ah faraca jaamacadda ummadda Soomaaliyeed anigu waxaan uga imid magaalada Boosaaso meel u jirta Baran 180 kiiloomitir ardayga koowaad baa ii gelaya faculty-ga geology-ga oo loo doortay loo asteeyay meesha waliba ugu habboon waxaan uga kireeyay magaalada guri aan ma garanaysaa inuu halkan wax ka barto waxaan rajaynaynaa insha Allah ardayda kaleeto oo aan la socon oo ma garanaysaa fursadooda aan sanadka u noqon inay la socdaanin jaamacadda in la furay waalidiintana waxaan ku boorinayaa inay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ugu macquulsanayd jaamacadaha adduunka ka mid ah waxaan marka rajaynayaa insha Allah ardayda iyo waalidiintaba guul baan u rajaynayaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa in waajibaadkooda gutaan waxaan dareemayaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed taariikhdan ayaa si lagu asaasay si hore wax loogu baran jiray waxaan rajaynayaa meesheeda iyo meel ka fiican la gaarsiiyo jaamacaddu waxay u baahan tahay dalku waa burburay jaamacad jirtay weeye ummadda Soomaaliyeedna jaamacaddaas jaamacad u ahayd dabcan waxaan sugaynay in badan waxaan aad baan ugu faraxsanahay jaamacadda in ma garanaysaa dib loo soo celiyo dib u shaqeyso goobta ay jaamacaddu ku taala ayaa ah dhul buuraley ah iyadoo sidoo kale ay daris la tahay buuraha silsiladda Goolis Dr. Maxamed Axmed Jimcaale waa rektorkii ugu horeeyay ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed burburkii kadib Dr. Jimcaale oo isagu daahfuray jaamacadda ummadda faraca Puntland ee Baran ayaa mar uu ka hadlayay furista jaamacadda waxa uu ku tilmaamay in goobtani tahay goob ku habboon cilmiga geolojiyada isagoona sheegay in xaruntani noqon doonto xarunta geolojiyada Soomaaliyeed waxyaalaha aan rabo hadda inaan niraahdo waxa waaye halkaan waxay noqon doontaa xarunta geolojiyada Soomaaliya
ardada sanadkan la qaadanayana ardada ugu horeysa waxay noqonayaan ardada geology dhigan doonta hadii la yiraahdo jaamacadda ummaddu waxay la dhalatay wadan aan weli dhaqaalihiisu uusan dhulka ka kicin marka uu dalku sidoo yahay bay ahaan ayaduna haddana dadaalka ugu badan waxaan gelinaynaa ilaa hadda waxaan xamar ku haynaa 5,000 in 5,000 oo kalena meeshaan ay timaado ayaa dadaalka u badan gelinaynaa ilaahayna waa nagu garab galaa insha Allah taala jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraca Puntland ee Baran oo sanadkii labaad arday qaadatay ayaa waxa sanadkan imtixaanka u fariistay 200 oo arday halka faraca Galmudug ee Caabud Waqna ay u fariisteen 100 arday iyadoo xarunta Muqdisho ay u fariisteen 3,585 arday jaamacadda oo sanadkii 2014 dib loo furay ayaa sanadba sanadka ka dambeeya waxa soo kordhay ardada soo codsanaysa jaamacadda halkaas ayuu inooga eegyahay barnaamijkeennii gaarka ah ee aynu ku eegaynay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraca Puntland ee Baran